زيارنا سيدا سوية وحارس خصوصنا شيخ وحوها علم الظاهر والباطن بكل مية علم ظاهر خلق وطبع كبرتي أول يقالي نبي عليه الصلاة والسلام رؤيه كأركي شيخه ومقالة مصمرين هاي أسوأ تاجن شيخ وحيراني قلت أن مسجد كجوجا هي واحد صوت علي رك أفرها أو صعدة أو طرقت أو النبي صلى عليه الصلاة والسلام مركز واحد كل هذه نبي السلام مركز السلام يقول مركز واحد صوت علي أفرح من كل سداه كعبدي أيوة السداه هي صوت عليه markaasuu yiri nabigu uu ishaaro yiri meel mixraabka dhinaciisa ah yiri dhiga halka kacbada markaasuu kacbadii halkii la dhigay gacantu intay soo qabtay wuxuu yiri dadka xajka u toosi nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu inta yiri yaan waxaan yiri hadda ma waxa loo soo xajinayaa dhul samareed markaasuu yiri dhul samareed baa loo soo xajinayaa مركز أمير هذا مركز الحجية وفي زيارة النبي عليه الصلاة والسلام لآل الجيران من مركز كذب لآل هي زيارة دي ومكان أبعالك مدينة المنورة لآل هي مركز يربي ما يوى لكينية مركز السوق يربي قبة الخضراء وبريق النبي عليه الصلاة والسلام يخجر مركز أبنعي كالجانب في كلام لقيت معناها سيداس وحوها markii intaasi sugnaato saabit noqotay hada ru'yadeedu qarow ma ahan ru'ya qarow ama ahan waxay ahayd ru'ya xaq ah bay ahayd waxa jiray nin shariif ah oo wilaayadiisa ummadoo dhan isku waafaqsanay oo khaamil ah oo waligiis wax weydiisan oo aan waligiis iyo ru'ya iyo midna aan lagu arkin oo ayaan inta yimid meesha joogay markaas wuxuu yiri waxaan ku niri waxa shariif meeshaan u timid markaasuu yiri waxa la amray inaan soo arko wakiilka nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasaan niri wakiilka nabigu xagee jooga markaasuu tacabar aamusay wuxuu yiri halkan la iigu soo tilmaamo sheekha markaa raqayda meesheeda ka soo baxay waa kan yiri wakiilkii nabiga waa kan la tusay buu yiri wakiilkii nabiga calayhi salaatu wasalaam هذا الشيخ وكيلك النبي إنه يهي نسكاب عدينها محايا العلماء ورثة الأنبياء أنبياء كوي دحلي وهي دحلك أنبياء وروح كلام